koobka horyaalada Somaliland oo bil ka badan ka socday magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa la ciyaari doona maalinta berri ah. Ciyaarta kama dambaysta ama fiinalka horyaalada waxaa kulmi doona labada kooxood ee ka dhisan caasimadda Somaliland ee Hargeysa, kooxda Gaashaan ee ciidanka qaranka iyo kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa. Kulankan waa mid ka mid ah kulamada ugu xiisaha badan sababtoo ah waxaa kulmi doona kooxaha ugu awooda badan isla markaasina ugu magaca weyn horyaalada kala duwan ee wadanka, waxayna ku hirdamaan inta badan koobka horyaalka caasimadda. Kooxda Gaashaan ee ciidanka qaranka Somaliland waa kooxda difaacanaysa koobka horyaalka caasimadda, sidoo kalena tababaraha Cabdifataax Shambariro waxa uu wataa koox u badan da'yar halka ay joogaanna ku soo gaadhay awood. Sababta taa cadaynaysa waxa weeye kooxaha ay ka soo badiyeen isla markaasina koobka ay ka direen. kooxaha ay koobkan ka direen waxaa ka mid ah kooxii difaacanaysay koobka horyaalada Somaliland ee dawladda hoose ee Burco. Sidoo kale koobkan waxay ka reebeen kooxdii koobka mucjisada ka soo qayb gashay ee kooxda dawladda hoose ee Wajaale oo koobkan ka reebtay xoogweyntii Goodir ee ka dhisna magaalooyinka Hargeysa iyo Burco. Labada tababare Cabdifataax Shambariro iyo weliba Kofinda waa laba tababare oo is yaqaana. sidoo kalena labada kooxood iyo labada ciyaaryahano ee labada kooxood kala metelaya iyaguna waa niman kulmay koobka horyaalada isla markaasina fahmaya qaab ciyaareedkooda. labada kooxood markay fiinalka u soo gudbeen waxay ka soo kala badiyeen kooxaha Goodir gobolka Saaxil, kooxda Goodir ee gobolka Saaxil taas oo ay dawladda hoose diriq uga badisay. kooxda Gaashaan ee ciidanka qarankuna waxa ay koobka ka dirtay kooxdii dawladda hoose ee degmada Wajaale. marka laga tago nasiibka kubadda cagta ama kubaddu waa barmadow iyo barmacad, waxaa la saadaalinayaa in koobkan ay qaadi karto kooxda Gaashaan ee ciidanka qaranka ee Hargeysa oo waddo adag u soo martay, sidoo kalena haysata koobka horyaalka caasimadda. haddaba iyay kula tahay inay ku guulaysan karto koobka horyaalada ee dhex yaala labadan kooxood. xidhiidhka kubadda cagta Somaliland sanadkan waxa uu ku soo kordhiyey fikrado cusub, waxaana ugu muhiimsan waxyaalaha uu sanadkan soo kordhiyey in la kala saaro laacibka Somaliland iyo weliba laacibka horyaalada Somaliland, kaas oo muran badan ka dhiliyay horyaaladii hore, hase yeeshee sanadka la kala saaray oo mid kasta gaarkiisa loo bixin doono. sidoo kale labada kooxood waxay heli doonaan abaalmarino kala duwan si loo dhiirigeliyo ciyaaraha, waana tallaabo wanaagsan oo xidhiidhku u qaaday dhanka horumarinta iyo kor u qaadista ciyaaraha ee dalkeenna.